السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناقصن داوديال درهانتين بهالكani waa TV-ga STN xaruntiisa magaalada Muqdisho magacaygu waa Shamsa Cabdiraxmaan Maxamuud barnaamijkan maanta waxaan uga hadli doonaa baraha bulshada iyo social media iyo saameynta ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed khaasatan Facebook ama sanadkan cusub ee 2019 inuu aad u kacsanaa oo mataqaana dadku aad ugu mashquulsanaayeen waxaan eegi doonaa tartan sanadka hore bilowday sanadkan amadi markale inuu soo rogaal celiyay oo todobaadyadii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeeyay aad iyo aad loo hadlayay kaasi oo ciwaan looga dhigay isbarbardhigga sawiradii hore iyo sawiradii dambe khaasatan tartanka loogu magac daray tan challenge ama 10 sano ka hor sawirkaagi aha soo dhig oo dad badan ay tartan ku galeen oo ay ka soo bixiyeen dad aad u fara badan oo isugu jira mas'uuliyiin fanaaniin wariyaal iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa reaction ka bixiyay oo soo dhigay sawiro ay iska qaadeen 10 sano ka hor 2 sano ka hor maxaan ku yiraahdaa iyo kuwa xitaa waagi la dhalay ay iska qaadeen waxaan markaas eegi doonaa bal saameynta ugu badan iyo dadka ugu badan ee markaas ka falceliyay ama tartankaasi ka qayb qaatay waagaag si toos ah ayaan barnaamijka u guda galayaa waxaana markaas soo qaadanaya sawiro asxaab isticmaasha social media ama Facebook ay tartankaas uga qayb qaateen waan jeclaan lahaa in badan oo kamid inaan la wadaago laakiin intii markaas waqtiga ama aan chance soo helo ayaan inii soo qaadayaa aan anagu iska bilowno bal reer STN oo aan soo qaato qaar kamid shaqaalaha STN oo tartankaasi ka qayb galay oo sawiradoodii markaas iyagu hora iyo maxaan ku yiraahdaa hadda tartankaas uga qayb qaatay waxaan ka bilaabayaa Cabdiqaadir Maxamed Qoslaaye oo kamid ah shaqaalaha STN ee TV-ga STN ee xarunta Muqdisho ka howlgala Cabdiqaadir ayaa soo dhigay sawir uu xilli hore iska qaaday asagoo aad inankuba arki doontaan oo caataa oo kala isbedel badan uu hadda ka muuqdo qoslay inkastoo jeclaan lahaa inuu maanta barnaamijka gala qayb galo oo si toos ah studio igula sugan yahay laakiin sawirkiisa ayaan soo qaadanayaa inkastoo ku soo dul qoray 1987 uu ii sheegay xilligaas inuu dhalanba uu kaga dan lahaa inuu kaga qayb qaato xaraabada iyo tartanka socday laakiin bal ila asagana sawirkiisa waa kana Cabdiqaadir Qoslaaye oo tartankaas ka qayb qaatay farax commentiga bixi faxiyo laga isar fardoosa sharide fariintani Facebook ba umaalina waa tahay sida inii sheegay asxaab badan oo reer STN ayaa tartankaasi ka qayb galay sawiradoodan aan soo qaadanayaa waxaan jeclahay markaan dhanka Kismaayo inaan aado isbedel badan baa muuqda dadku intii tartankaas ka qayb gashay waxaan filayaa inaad su'aalo isweydiinaysiin ama intiini sawirada soo aragtay ama ayagu tartanka ama su'aalaha ugu badan dadku la isweydiinay waxa weeye sawirada la soo dhigayay iyo sawirada hadda la iska qaaday dadku wada cadcad yahay oo la wada qurux badan yahay laakiin sawiradii hore oo xasuus oo iyadoo xaalku maxaan ku yiraahdaa Allah sahar yahay bal marka magaalada Kismaayo wili asxaabtii STN ayaan ku guda jiraa Axmed Laqaaye oo kamid ah asxaabta STN agaasimaha qaybta Jubbaland ee TV-ga STN ee magaalada Kismaayo ayaan soo qaadanayaa wuxuu kamid ahaa asaguna dadkii tartanka ka qayb galay oo soo dhigay waaye sawirkiisa oo xasuus oo xilli hore bal wad u jeedaan asagana Axmed Laqaaye iyo haatan haybada ka muuqatay waxaan ku heerka uu joogo iyo bal xilligaasi sawirkaas uu galay farqiga u dhaxeeya qiimeynta inta badan daawadayaasha ayaan u deyn doonaa waxaan leeyahay bal waa u jeedaane waxa isbedelay iyo meelaha isbedelku ka muuqda iyo bal ininku la ila soo qiimeeya farax commentiga bixi faxiyo laga isar fardoosa sharide fariintani Facebook ba umaalina sidaan hore in kugu sheegay tartankan dad fara badan ayaa ka qayb qaatay waxa uu bilowday sanadkii hore ee 2018 xilligaas waxa loogu magac daray before and after dad fara badan ayaa xilligaas ka qayb qaatay balse sanadkan ayuu mar kale dib u soo laabtay asagoo waliba aad iyo aad hadal hayntiisa ay u badan tahay
مسؤولين لو ما kala harin wariyaal saan sheegay bulshada caadiga nooc walba ayaa ka qayb qaatay tartankan waliba waxyaabihii sidoo kale marka laga taga sawirada waxa jiray waxyaabo kale oo ay dadku soo dhigayeen oo waxyaabo isbedelay sida magaalo xilli hore say ahayd hadda say tahay marka qaar waxyaabaha igu qosolka badan oo aan filayo ininkuna ina aragteen waxa kamid ah dad intay cunto saxan ku jidha soo sawireen markii dambana iyadoo maran ay sawir ka soo qaadeen ay dhaheen before and after markii hore saanu saxanku u buuxay haddana saanu u maran yahay waxyaabo runtii aad u qosol badan ay ahaayeen waxyaabihii Facebook ka socday dad badan ay ka qayb qaateen Soomaali oo kaliya ma ahayn dadka tartankan ka qayb qaatay iyo barnaamijkan waxa jiray dad ajnabiga ama wadamada caalamka ama dad badan oo caana dadka aan xusi karo oo ka qayb qaatay waxa kamid ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo inkastoo sawirkiisa halkan uu kala wadaagi karin laakiin ka ah qayb ka ah dadkii ka qayb qaatay ciyaartooy caana ayaa ka qayb qaatay dad fara badan ayaa sheekadan xiisaha leh ee toddobaadkii u dambeysay aad ka loo hadalhayay ka qayb qaatay dhamaantoodna sawiradooda halkan kuma soo in kama wada tusi karo laakiin waxay ahayd sheeko aad baraha bulshada u qabsatay social media wuxuu noqday wax dadkii dhamaa isku arkeen oo maanta wixii meel ka dhaca iyo wixii qaarad ka dhaca iyo wixii gobol ka dhaca iyo adduunka meel walba laga joogo wixii ka dhaca saas loo wareejinayo oo waxaan ku iri aan loo kala harin waliba wixii qof kasta uu isku dayay inuu qayb ka qaato Facebook-na wuxuu noqday meesha ugu badan marka waxaan jeclahay bal hees Facebook heesa laga sameeyay waxyaabo badan baa laga yiri social media bal heestan waxay kamid tahay heesaha markii dadku intay arkeen sida Facebook loogu waalan yahay laga sameeyay abwaan fanaan daayir ba ku luuqeynaya bal heestan ila soo daawada fardal isku faaniyo yurub dafeediyo filamba ku noolahay Facebook ba umaalinaha fardal isku faaniyo yurub dafeediyo filamba ku noolahay Facebook ba umaalinaha farin isku dhiibiyo farxad lagu kifaaxiyo fashilantay bentuye Afrika ku noolahay Facebook ba umaalina farin isku dhiibiyo farxad lagu kifaaxiyo fashilantay bentuye Afrika ku noolahay Facebook ba umaalina farax commentiga bixi farxiyo laga isar fardoosa sharide farintani Facebook ba umaalina wagaag heestaas waxa la yiraahdaa Xaliimo share ii dheefaadmo like ii saar hebel kalow maxaan ku yiraahdaa commentiga iga soo bixi waxay ka hadlaysay saameynta social media iyo qofku markuu wax dhigo sida ugu xisaabtamayo in laga soo faaloodo share iyo like tii maxaan ku yiraahdaa wax walba uu sugayo sidaan hore in kugu sheegay dad fara badan ayaa ka qayb qaatay barnaamijkan ama tartankan ka socday dhanka social media qaasatan Facebook iyo Instagram ka iyo meelo kaleba mas'uuliyiin ayaa kamid ah dadkaasi ka qayb qaatay iyo dad kale oo caan oo fanaaniin ay ku jiraan waxaan soo qaadan doonaa qaar kamid ah mas'uuliyiinta xilalka ka haya haatan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay xildhibaano kamid yihiin waxaan jeclahay inaan la wadaago markaan xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ahaa dadkii maxaan ku yiraahdaa ka qayb qaatay tartankan ama sawiradan kuwii hore iyo kuwii dama oo Facebook ka socday bal waa kana asagana xildhibaan Mahad Salaad isagoo waayo maxaan ku yiraahdaa sawirkiisa ahaa iyo haatan uu yahay mas'uul ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ahna mudana ka tirsan baarlamaanka farax commentiga bixi farxiyo laga isar fardoosa sharide
fariintani Facebook baa u macallina wax badan ba isbedelay dadka inta badan markay soo qorayaan waxay ku soo qorayeen weynaada wanaagsanaada alxamdulillah heerkan hadaan soo gaaray waxa u noqotay xasuus iyo taariikh aan la ilaawi karin waa tahay dad fara badan ayaa jira ma soo wada qaadi karo kulligood barnaamijkana inuu kuma soo gudbin karo balse dhanka mas'uuliyiinta hadaan ku sii socdo heer qofka kale muxuu aan rabaa inaan maalinka dhow Cabdifataax Qaasin soo sidaan hore inuu kugu sheegay dad badan baa ka qayb qaatay tartankan aad bixiso u lahaa dhamaantood inima soo wada qaadi karo laakiin bal dhanka baarlamaanka hadaan wali ku sii jiro xildhibaan Cabdifataax Qaasim oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa asna qayb ka dadka tartanka ka qayb qaatay wuxuu soo dhigay sawir asagoo aad u yar oo mataqaana dhalinyaro ah waqtigaas midha ay aad u yar ku jiray iyo haatan uu ka tirsan yahay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya sida ay sheegeen dadku waxay ku soo wada qorayeen weynaada wanaagsanaade iyo mataqaana alxamdulillah ilaahay baa heerkan soo gaarsiiyay waxayna dhamaantood u wada tahay xasuus aan la ilaawi karin bal sawirkiisana haatan aan la wadaago arax kommentiga bixi faxiyo laga isaar fardoosa sharide fariintani Facebook baa u macallina waxaan filayaa dad badan inay isweydiinayaan maxay tahay sababta barnaamijka aad ragga oo kaliya ugu soo qaadanaysid oo maxaa ku dhacay dumarkii oo gabdhihii maxaa ku dhacay way jireen gabdho badan oo tartankan ka qayb qaatay ama soo dhigay before and after inkastoo ragga uga badnaayeen oo xilligaasi waliba dad waxaan arkayay xitaa baraha bulshada dhahaya war gabdhuhu maxay ugu yar yihiin kolaba ma garan karo waxa u maleynaya gabdhuhu xilligaas inaysan ku mashquuli jirin sawirada iyo mataqaana maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha kale oo ay waxbarashadoodii maadaama la yiraahdo gabdhuhu hawsha guriga iyo waxyaabahaas ay aad ugu mashquulsanaayeen intii soo dhigtana ayaguna way ka qayb qaateen oo dumar badan ayaa barnaamijka ka qayb qaatay waxa jiray sidaan dumar badan baa jira oo laakiin ka qayb qaatay tartankaasi balse dacayad baa jiray oo ahayd gabdhuhu uma badna waxay ka cabsanayeen midha xilligaasi waa la madmadooba make up ma jirin isnaashnaashkan iyo adduunyadan ma jirin waxaan leeyahay ragguba iyo noo gaban laftigooda xilligaasi waa la wada madmadooba haatan cadaanta inteeda badan waxa keenayso waxyaabaha ama aaladaha sawirada la isaga qaado oo maxaan ku yiraahdaa quality-gooda aad u sareeyo oo mataqaana ama application ha ahaato ama kaamirooyinka caadiga ee la adeegsado ha ahaato balse xilligaasi qof cad iyo qof madooba midna lama kala garan jirin oo 10 sano ka hor ama dhowr iyo 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor intay doonto ha ahaato waxa aad quality-gooda u yaraa waxyaabihii sawirada lagu gali jiray marka waxaan leeyahay gabdhaha waxba yaan laynay mataqaana layn cabsi gelin rag waa wada madooba dadkuna waa wada madooba sida adduunyada iyo mataqaana jawga isku bedelay ayayna wax walba isku bedeleen gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa sidaan hore inuu kugu sheegay ma soo wada qaadan karo dadka ka qayb qaatay maxaan ku raahdaa barnaamijkan tartanka sawirada soo dhigay meel walba ay joogaan Soomaali iyo ajnabi iyo nooc walba isugu jira balse waxaan ugu talagalay inaan intaasi aan in la soo qaato sidoo kale reer STN ama wariyaasha STN qayb badan oo kamid ah ayaa ka qayb qaatay tartankaas laakiin ayaga ruuxooda kama wada gaaro oo ma soo wada qaadan karo aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaray waxaan jeclahay dadka intooda badan bal barnaamijkan maadaama sanadkii hore u bilaaday social media iyo Facebookna dadkii uu saameyn badan ku yeeshay oo ay ka mid noqotay shaqadii iyo wixii maanta cusub iyo wax kasto jira iyo wax kasto la qabto in Facebook la dhex keeno oo social media ay dhex wareegaan bal waxaan jeclaan lahaa ra'yigiina sidoo kale waxa jiray maalmo ka hor dadka asxaabta Facebook igala socota aan soo dhigay qofkii maxaan ku yiraahdaa aan uga hadlayay war bal sawiradiini before and after hala soo diro dad badan baa sawirro ii soo diray laakiin ka bacdi waxay dhaheen walaalay maxaan ku yiraahdaa hawshaasna gelin bal maxaan ku yiraahdaa intaas nooga jooji tartankii hore aan uga qayb qaadanay dadka aan ugu sii dirinay waxay noqotayna sheeko caadi ah in wixii maanta adduunka ka dhaca ama wixii jira ama nolosha caadigeeda ama wax kasto dhacay ay social media yaalaan maxaan ku yiraahdaa lagu arkayo fikradiina waxaan jeclaan lahaa daawadayaashayda qiimaha badan oo meel walba joogtaan iyo si walba aan oo daawanaysaan
doontaan barnaamijkan gaaban oo ugu talagalay inaan uga hadlo bal saameynta baraha bulshada sidaad u aragtiin iyo ra'yigiina inaad nala wadaagtaan dad badan waxay aaminsan yihiin inay tahay xasuus in sawiradii hore iyo mataqaana dadka la tuso dad badan waxay aaminsan yihiin inaysan arintan ahayn arin wanaagsan oo qofku sawiradiisa iyo mataqaana waaga carruurtaas u ekaa iyo ay tahay waxyaabo iska personal oo ay safiinan in banaanka la keeno waxaan jeclaan lahaa fikradiina inaad nala soo wadaagtaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynaya waxa si toos ah in la socodsiinaysay anigoo Shamsa Cabdiraxmaan Maxamuud waxaan u mahadcelinayaa asxaabtii dhanka kaamirada oo ugu horeeya Cabdiraxmaan Yare iyo sidoo kale Iftiinshe iyo Qoslaayo oo asaguna barnaamijka qaybka ah stuudiyaha ay kula sugnaa barnaamijka midka xiga inta ku kulmi doona waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليجي انت هنشري ودن كان قفك هاتشرا أبيكينا نرى وتعلان اسمان ورا وليجي انت هنشري ودن كان قفك هاتشرا أبيكينا نرى وتعلان اسمان ورا وريسنا والكيغو ياي وعن أنيقو كمانك ويدا ذمان مقر وحسوق وريسنا والكيغو ياي فيسبوك وركاقي ويدن كوايو وعناي سيدتاي فيسبوك وركاقي ويدك وايو والله قويه وعناي سيدتاي waayo waa laygu weeye